mararka qaar hal fikrad ayaa bedeli karto gebi ahaan noloshaada. Ku soo dhawow taxanaha Faynuusta, halkaasi oo aan ku shidi doonno iftiin yar oo kaa caawinayo fahamka naftaada, noloshaada iyo qalbigaaga. Qayb walba waxay xambaarsan tahay fariin kooban oo kuu noqon karta hagahaaga maalinlaha ah. Haddii aad raadinayso deganaan, faham iyo isbeddel dhab ah, meesha saxda ah ayaad joogtaa. dad badan oo naga mid ah oo aanan ka hadlin ama aysan ka muuqanin daalka ay dareemayaan. Wuu daalan yahay, ma laga yaabo qofkaas inuu dhaho ma u haysto inuu daalan yahay, mana ka muuqato daal oo jirkiisa marka adi qof kale uu la kulmo ma arkaayo, laakiin si qoto dheer qofkaas si gudaha ah ayuu u daalan yahay. cashirkeena caaw waxaa waaye al-inhaak nafsi walcadfi, ama haddaa af Soomaali dhahno daalka qofka uu dareemayo dareen ahaan ama mashaacir ahaan uu u dareemayo, ama burn outka, emotional burn out wax la dhaho. maxaa laga wadaa dareenka ah oo hadda aad ka hadleyno emotional burn out, ama qofka inuu dareen ahaan u daalo, macnaheeda maxaa waaye? macnaheedu waxaa waaye qofka inuu dareemo daal qoto dheer oo ka yimaado culeysyo nafsiyad ahaaneed iyo shucuur ahaaneed oo muddo dheer soo socdeen. si fudud haddaa u dhahno waxaa waaye marka qalbigaaga, maskaxdaada ama ruuxdaada, jirkaaga ee ku dhahaan waa daalnay. jirkaagu wuu hadlaa, maskaxdaada way hadashaa, ruuxdaada way hadashaa, laakiin anagaa dhegaysanin. marka daalkaas aan hadda ka hadleyno ma ahan wax hal maalin ku imaaday oo aad ku daashay, waa culeys aad qaaday maalin kastana aad sidatid ilaa aad ka daashay oo si gudaha ah ee kugu gudubtay. daalka caadiga ah wuu ka duwan yahay. okay, maxay ku kala duwan yihiin? qofka markuu emotional ama dareen ahaan uu u daalan yahay oo gudaha ka daala, maskaxdaa ka daalanahay, dareen ahaana u daalanahay. qofka markuu dhahayo iyo daal caadiga ah oo normalka aan aqaan maxay ku kala duwan yihiin? daalka caadiga qofka hadduu nasiino caadi ah sameeyo ama seexdo ama nasto wuu bogsadaa. laakiin daalka dareen ahaan nasiino bes kuma filno. daalka caadiga ah waqti yar ayuu socdaa, halka daalka kale dareen ahaan oo gudaha qofka uu ka gubanayo ka daalo muddo dheer uu socdaa. daalka caadiga ah tamar yar haddaa heshid si degdeg ay kugu soo laabataa. tamar yarta maxay noqon kartaa? kafee cabtay ama socod yar hadda wax yar aad samaysidoo simbal ah, isla markiiba yacni waa kugu soo laabanay. laakiin daalka emotionka ah waa tamar la-aan joogto ah maalin walba la nooshay waaye. tusaale ahaan qof shaqo badan oo shaqo qabtay hadduu hurdada kadib wuxuu dareemaa inuu fiicnaado oo normal yahay. laakiin hooyo 3 sano ama 2 sano ama sanad culeys qaadaysay, culeyskaas yacni maskaxiyan u qaadaysay, mas-uuliyaad badan, walwal badan, dhaqaalo ka fikiraysay, caruur xanuunsan ama dhibaato family haysata, waxyaabaha keenaa waa ka hadli doonaaye. haddee si kasta u seexato daalkii weli wuu hayaa. marka waxaa arkaya qofka asoo hurdo kasoo kacay welina wuu daalanyaa. qof anoo waxba qaban inaa daalanahaa lagu dhahaa. waxyaabaha ugu badan oo qofka oo isticmaalayo waaye. marka siduu u dhacaa marka daalkan aan hadda ka hadloono? qaabku u dhaco waxaa waaye waa qaab safar oo kale ee hal mar qofka ma ku dhaco. koodi bilowga muxuu bilaabaa qofka tamar badan, tamartiis way fiican tahay, wax badanna wuu qabtaa, waa bilaaw waaye, wax ma ka qaldano. dhex markuu maraayo waxaa dhacayso daalaa bilaabanayo, daal bilow ah, walwalkana wuu la socdaa. daalka iyo walwalka qofka maskaxdiisa ma istaagto, mar walba way taagan tahay. midka heerka sarena waxaa waa xanaaq iyo ka fogaanshiyo iyo dulqaad la-aan, iyo wuxuu isku darsanayaa stress badan iyo walwal badan, wixii oo dhan iskugu tagayaan. intaas marka laga soo tago, jirka maxaa ku dhacaya marka? qofka markuu daalkan tirada badan oo culeysyo badan noloshiisa uu soo watay, maskaxdiisa waxay noqonaya overload, maskax wax badan qaaday waaye. jirkiisa marka waxaa lasoo deynaa cortisol, maadada hormoonka oo badanaa lasoo deynaa. haddii hormoonkaas lasoo deeyo nervous systemka ama systemka oo
feejignaan wuxuu galaa nervous systemkeena feejignaan joogto ah nervous systemka badanaa wuxuu shaqeeyaa xaalad culus markay dhacdo inuu feejignaan galo qofka si uu jirkiisa u difaaco ama xaaladaas uga baxo tusaale ahaan libaaxa aragti soomaa libaax marka aragtid nervous systemkaaga wuu shaqeynaa waxaa lagu diyaarinaa inaad fakatax dhahdid oo ordid jirkaaga marka wuxuu ku jiraa xaalad feejignaan oo difaac maanta dhan uu ku jiriyo maskaxda marka qofku nervous systemkaaga marka xaduu leeyahay wuu daalaa marka maalin walba marka qofka haddii cortisol hormoonkiisa lasoo deynayo nervous systemkaaga maalin walba wuxuu ku jiriyaa xaalad feejignaan taagnaan difaaci taas marka maxaa ka dhalanayo daal joogto ah walwal joogto ah jir xanuun okay marka daalkan hadda anaga ka sheekeynoono ma laga hadlo dad badan way dareemaan laakiin waxaa la dhahaa qof karti badanaa tahay waa ka boodeysaa waxaan ii ka badanaa lasoo sameeyey ama qofka inuu dhaho waxa ii khaldan meel kale in loo raaciyo la dhaho maalmahan ani culeysadaaneeto waa iska yaabanahay waali ilaystaa laga yaabaa maxaa la dhahaa sixir amaa ligu sameeyey wax oo yacni waa la leexiyaa si dadbanna waa loo leexiyaa ama maxaa la dhahaa cibaadada ii khaldan oo kale inuu qofka dhaho ama oo dhaho kuma xirno cibaadada oo kaa khaldanta kuma xirno maxaa la dhahaa wax oo yacni oo axmil yacni mid ugu daran waxaa waaye khaasatan oo loo adeegsado hooyooyinka loo adeegsadaa waxaa la dhahaa hooyada waxaa laga rabaa inay hooyo maxaa u tahay adi sababta adi aa hooyo u tahay maxay tahay maalinkaa hooyo noqonaysa waxaa lagaa rabay inaad ka sawirtid waxa la dhaho nasiino iyo jiljilaac iyo waxaas ya waxyaabaha kale ugu daran waxaa waaye oo mahmahayada qaldan oo la isticmaalo hooyo barkinteeda oohin ku dhammaynin ilmo ma korsato oo kale mahmahayahaas kula la isticmaalo haddii mahmaayo kale oo hooyooyinka loo isticmaalana waa ii sheegi kartiin waxyaabahan lagu sii marar habaayo waxaa kamid marka hooyo maanta hadday imaato gabar ay imaato ama hooyanimada ku cusub ama gabar caadi ah hadday ka hadasho daal maskax ahaana dareemaya ama waxyaabahaas ay ka hadasho waxaa la dhahaa bismillah waxaas wax laga hadla miyaa waxaas ii ka badanaa la sameeyaa intaa laga dhacaa kanaa laga dhacaa kanaa laga dhacaa kanaa la qabtaa kanaa la qabtaa kan qofkii kale qiyaas ahaanaa la iskula qaadanaa qofkaa marka wuxuu u arkaa markuu waxaas ayta looga sheekeeyo inay wax uu dareemayo ee tahay wax aanan loo baahnayn in laga hadlo taasna waxay dhalisay qof kasto daalkuu dareemayo inuu cantuuftiis u laqo xalna raadsanin laga hadlin culeysaduna aan ugu sii bataan inay culeysaduna ugu badan yihiinna waxaa example yar noogu fudud hooyo kasto gurigeeday ka dhex arkee buuqa xasilooni la-aanta dagaalka dilista ilmaha la dilaayo dulqaad la-aanta deganaan la-aanta xasilooni darada waxaasoo dhan waxaa waaye wax wadano aruursanay la nafisin la saarin la xalinin yacni culture ahaana waxaa u qaadanay qaabkaas inaan usoo korno anagana aan sii gudbino okay baan oogta bulshada soomaaliyeed marka laga hadlaayo waxyaabaha ugu badan oo keena waxaa waaye oo ugu badan oo keenaya gabdhaha soomaaliyeed hooyo wax walba keligeed qabanayso sababaha ugu badan waxaa waaye hooyada ayadaa mas-uul wax walba ka ah ilmihii mas-uulay ka tahay nafteeda mas-uulay ka tahay reerihii ayada dhaleen mas-uulay ka tahay waxaa laga yaabaa dad kalo inay mas-uul kasii tahay ya yacni mas-uuliyad badan inay hooyadii saaran tahay ama xitaa marmarka qaar aabayaasha xitaa qeybay ka noqon karaan inay mas-uuliyad badan ku saaran tahay waalidkiis walaalihiis dad badan inay iskugu tageen qodobka labaad waxaa waaye qadarin la-aan oo aan la qadarinaynin maxaa waaye inaad dareenka laga hadlo dareenkiyaa la qarinayaa ma laga hadlaayo qofka yacni inuu ka hadlo wuxuu u arkaa weak inuu yahay daciif inuu yahay marka qofka wuxuu iska dhigayaa qof adag asagoo qofka murugsan uu dhoolo caddeynayaa asagoo gudaha ka gubanayo wuxuu ku jilayaa shakhsiyad kale asagoo daalana wuxuu iska dhigayaa qof taagan ilaa qofka uu ka dhaco macna qodobka saddexaadna waxaa waaye nasasho la-aan qorsho nasiino nooma degno hadday noqoto waalid hadday noqoto gabar hadday noqoto xaas any qof yacni nasiino anaga waxaan u naqaanaabo hurdo bis inay tahay
waxana siina maxaa waaye qaybkee loo nastaa qofka su u nasa karaa daily se u nasa kartaa muhiim waa eedane qodobka kale oo ugu daran oo gabdhaha haystana waxaa waaye filasho badan filasho hooyada waxay filanaa ilmaheeda inay perfect noqdaan meesha ugu fiicneed inay kasoo baxaan way soo dadaashay juhdi badan ay soo gelisay keligeeda mas'uuliyad soo qaaday waxay filanaa ilmahan juhdiga iyo dadaalka ay gelisay in ka badan intay filanayso in ka badan inay la imaadaan ama intay filanaysaba filashadaas maxay filanaa cunugan sida usoo tarbiyeysa waxay maskaxdeeda ku haysatay inuu u noqdo waxaa meesha ka baxay cunugan ilaaha abuuray adi ma toosi kartid adi juhdigaaga iyo waalidnimadaada iyo dadaalkaaga iyo wixii awoodaada aheedaa gelisa laakiin hanuunka mar walba ilaaha iska leh meeshas marka oo hooyadii ay aaminto haddii aamini lahayd qodobkaas niyad jab badan iyo daal badan mays dareemin laakiin hooyadii maanta dhan waxay dareemaysaa markuu cunug wax yar qalad uu sameeyo waayo cunugaan saan ugu qaldamay sababtoo ee wax walbaa u huray wax walbaa sameeyey wax walboo dadaalaa ku tarbiyeeyey sax waaye tarbiyadaadu way wanaagsan tahay ina allaha laa yudiicu ajra man axsana camalaa ilaahay marna ma dayacaayo wanaagga aa samaysata taas meel ha kuu taalo laakiin ayadana meel ha kuu taalo إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هنونك مرة بالإله إسكاله الله لقى يا بعض توصل أو ماشي وفعلا مرست إنه إله كبت كوجدي هالمرأة قفك نقطة محقق ملانا قفك أو كاب أحسن في لشة وحاكة لو كمد نينك قواء أو كلا إنا كفلت وحياة بدن أو فارس أحلام كاجنيدها أكو هي ستة أو كلا كان إنه نقض كاس نقض أما يعني وحالة يا بعد ذا البدن ninka gelisay wax badan aan xaaladahay u qabatay waxa ka filaya marka inta arisiis oo kale tusaale ina ka qaadatid okay tusaalayaasha marka oo ugu daran gabdhaha Soomaaliyeed marka ay dadaasho ay wax qabato ay meel iska soo saarto ay juhdi bixiso waa la amaanaa bulsho ahaan marka unay laakiin cid weydiisa ma lahan madaashay nasiina ma u baahan tahay cid dhahdo ma lahan taasna waxaa wax oo kala jirkeena oo waxan marka okay maxaa muhiim ah in la fahmo marka waxaa muhiim ah haddii aadan fahmin dalkan oo jir ahaaneed maskax ahaaneed waxaa dhici doonto oo aa iskala noolaatid qofkii inuu is eedeeyo oo dhaho ani horta qof oo wax taramiihi hooyo oo waxa ahay wax ma garata wax aan qabsan karin weeg oo dadaal lahayn ko okay waxa sii kordhinaa culeyskii ku haystay oo ku sii kordhismaayo waxa iska interesa marka astaamaha jirkaaga ka soo baxaayo haddii aa fahamtane oo cashirkan caawa ka hadlayna aa fahamtidne waxay qayb ka qaadan doontaa inaa nafsadaada u naxariisatid inaa bilaawid inaa bogsatid